ku soo dhawow janalka galgalan news taabo calaamada guduudan ee subscribe kadibna ku dhufo gambaleerka si aad u heshid mar walba barnaamijyada iyo wararka aanu soo gelino galgalan news. mudane madaxweyne wadada hadda waxaanu dhammaystirnay 120 kilomitir oo caratuur ah waxaanu dhisaynkeedii iyo sarfeygeedii baan dhammaystirnay hadaftimo ilaa Yubbe haddana waxaanu si dhaqso u bilaabaynaa inaanu dhisaynkii samayno Yubbe ilaa iyo magaalada Ceergaabo haddii Ilaahay qadaro si dhaqso in loo bilaabo wadaduna ay saa u socoto wajigii kaleeto oo laamiga ahaana aanu ku dhinac wadno oo qalabkan hadda la rakibay وشغل بلعبه سيدا ugu dhaqsiyaha badan raxiim mudan madaxweyne ku soo dhawow magaalada Ceeldaahir wadadii Ceeldaahir Ceergaabo 90 kilomitir ee gudigu ka siiyeen warbixintoodii guud marka madaxweyne waa kugu soo dhaweynaya waqtiga uu kulul iyo saayida iyo dadka ku sugaya ku soo dhaweyn golaha wasiirada golaha wakiilada maamulka gobolka iyo degmada isimada dhalinyarada haweenka dhammaan bulshada reer Ceeldaahir iyo madaxda kale ee ciidamada ee halka jooga kulligiin waa salaamantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa sharaf weyn ah maanta inaan halka ku xarig jarno wajigii koowaad ee wadada Ceeldaahir Ceergaabo qaybtii koowaad ee cartuurka oo warbixinteedii hadda gudiguna siiyay waxaan ku faraxsanahay sida wanaagsan ee habsamida leh iyo isxilqaanka leh ee gudigii hawshaas waday ee hawsha u qabteen waxaan uga mahad celinaynaa dadaalkaas waxaan u rajaynaynaa Ilaahay idinkiisa inuu ajar iyo xasanaad ka siiyo shacabkoodana waa u og yihiin taariikhduna waa u gali doontaa waana arrin lagu farxo oo runtii isku tashi ah waa sidoo kale waa ku ammaanaynaa xukuumaddii naga horreysay dadaalka badan ee gelisay iyo sida wanaagsan ay sida dhow ula shaqaysay sidoo kale waxaan ballan qaadaynaa inaan si hagar la'aan ula shaqayno Ilaahay idankiis wada laamiyo Ceergaabo gashana dhawaan in la arki doono haddii Ilaahay idinka dhigo waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay inay shaqadaas qabsoomi doonto waxaan sidoo kaleeto fariin u diraynaa maamulka Hargeysa in uu horumarka ku socdo gobolka Sanaag carqalada ka daayo oo uu ka waantoobo inuu horumarka hor istaago waxaan rajaynaynaa horumarkaas inuu noqdo horumar ballaaran oo dhammaan geeyigu ka faa'iideysto horumarka Soomaaliyeed waa horumar Soomaali oo dhan ay wada yeelanayso wadadu waa wada Soomaaliyeed deegaanku waa deegaan Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa arrintaas inay ka qayb qaadato kobaca dhaqaalaha horumarka bulshada iyo isu soo dhawaanshaha bulshada guud ahaan Puntland ku nool waxaan naga go'an mashruuca sidii loo asteeyay inuu u fulo oo uu Ceergaabo tago waxaana ka digaynaa cid kasta oo carqalad ku noqota in aan insha Allah taala carqaladaas annaga iyo shacabka wada jirna aan qayb ka qaadan doono carqaladaas sidii loo gudbi lahaa ma rabno carqalad meel horumar ka socdo dagaal anagu ku baaqimeyno mana ka rajaynayno inay halkaas carqalad ka dhacdo waxaas u sheegaynaa mashaariicdan maaliyadda badan ku baxday qalabka badan ku baxay cid kasta oo damacda inay waxyeelayso
dawladda puntland diyaar u tahay inay difaacdo ama kuwa meel fog ka yimid ha noqoto ama kuwa buuro ku jiro la sheegay ha noqoto cid horumarka puntland hor istaagi doonto ma leh dhammaan shacabka puntland ciidan iyo shacabba waxaan ku boorinayaa inay horumarkooda wanaagooda ay ilaashadaan oo cidna ayna ka yeelin horumarkooda inay cod hor istaagto sidoo kaleeto waxaan rajaynayaa magaalada ceeldaahir inkastoo dhulkii barwaaqada ahaa ay in badan ka soo qaxeen oo halka ku soo qaxeen waxaan rajaynayaa dhulkaas si degdeg in loogu noqdo dadka cadowga yimidna laga saaro in loo diyaar garoobo amniga ilaalintiisa horumar baan ka shaqaynaynaa amniga ka shaqayn mayno caqli bini'aadamku aqbali kara maaha waa inuu amnigu horreeyaa mar walba waxaan rajaynayaa maamulka puntlandna ka go'an guddigan horumarkana waxaan rajaynayaa inay amnigana nagala shaqeeyaan ma aha in dadku waxaan jirin la isu sheego amniga ayaa ka horreeya wax walba sidoo kaleeto gacanna amnigaan ku wadeennaa gacanna horumarkaan ku wadeennaa joojin mayno insha allah waad mahadsantihiin aad baan idinka mahadcelinaya